Mawduucan waxaan uga hadli doonaa cimilada waddanka. Inta aanan u gelin cimilada waddanka Soomaaliya, waxaan wax yar oo kooban ka tilmaamayaa juqraafi ahaan meesha adduunka aynu kaga naalno, taas oo saameyn ku leh cimilada dalkeenna hooyo. Juqraafi ahaan, Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay adduunka ka dhacdaa loolka 2 digrii hal galbeed iyo dhigta cabirkeedu yahay 45 digrii 21 Soomaaliya waxa ay xuduud dhinaca waqooyi kala leedahay Gacanka Cadmeed, dhanka barina waxa ay kaga beegan tahay Badweynta Hindiya, dhinaca waqooyi galbeedna waxa ay Soomaaliya xuduud kala leedahay Jamhuuriyadda Jabuuti. Soomaaliya waxa ay kaloo xuduud dhinaca galbeed kala leedahay Itoobiya, dhanka koonfureedna waddanka Kenya. Kumanaan sano ka hor, gobolka Geeska Afrika waxaa loo yiqiin isha nolosha bini'aadamka. Masaaridii hore, Giriigii iyo Roomaaniyiintuba waxa ay gobolkan Geeska Afrika u soo direen dhulmareenno iyo ganacsato. Waxaa kaloo gobolka Geeska Afrika loo yiqiin dhulkii Fooxa ama dhulkii Uduga, Land of Punt, waa meesha uu ka yimi magaca Puntland. Raadadkii iyo taariikhihii ay ummadihii hore ka tageenna waxaa lagu arkay buuraleyda Calmadow iyo deegaanada bariga fog sida degmada Xaafuun gobolka Bari. Buuraha Calmadow waa buuro silsilad ah oo Ilaahay ku manaystay qurux, xayawaano kala duwan, reer guuraad deegaan ahaan u degan. Waxa ay buurta tani ku xidhiidhsan tahay buuraleyda Golis iyo guureyska ku aroora gobolka Soomaaliya ee Itoobiya. Halkaas ayay markaa buurahaasu ay gaaraan. Waa sidee haddaba cimilada waddanku? Cimilada waddankeennu waa mid dhexdhexaad ah, suuragalna uga dhigta muwaadinka Soomaaliyeed inuu xilli kasta wax qabsan karo ama wax beeran karo. Waddankeennu waxa uu ka mid yahay meelaha ay ugu badan yihiin adduunka xayawaanku, sida ku qornayd buug uu qoray Jay Fallon oo ka tirsan Jaamacadda California ee waddanka Maraykanka. Xayawaanada adduunka ugu badani waxa ay ku nool yihiin meelaha kulaalayaasha adduunku ay maraan. Waddankeennana waxaa mara dhulbaraha adduunka kala bara. Dhulbaruhu waxa uu waddankeenna ka maraa meel aad ugu dhow magaalada Kismaayo. Guud ahaanna xayawaanada dunida ugu badani waxa ay ku nool yihiin qaaradda Afrika, waxaana ay sababtu tahay cimilada wanaagsan, abitaadka iyo dhirta kala duwan ee ka baxda qaaradda Afrika oo ay xayawaanku ku noolaadaan ayaa iyana sabab u ah in xayawaan badan qaaraddan ku noolaadaan. Cimilada gobollada dalkeennu waa mid kala duwan. Qaybo waddankeenna ka mid ahi waa kulul yihiin, meelana waa ay qabow yihiin. Tusaale ahaan, gobollada waqooyiga ee dalka celcelis ahaan kulaylkoodu waxa u dhaxeeyaa sanadkii 30 ilaa 40 waa qiyaasta centigrade-ka. Marmarka qaarna waxa uu heerkulku gaaraa ilaa 50 centigrade. Gaar ahaan meelaha aadka u kululay waa xeebaha badda cas ku yaalla ee Soomaaliya. Gobollada waqooyiga heerkulkoodu waa ka sarreeyaa inta badan gobollada koonfureed ee dalka, halka gobollada koonfureed heerkulkoodu uu u dhaxeeyo 20 digrii centigrade ilaa 40 digrii centigrade. Waddankeenna abaaruhu waxa ay dhacaan 2 sano ilaa 3 sanoba hal mar. Xilli roobaadka marka la gaarona waxaa dhaca daadad xooggan oo baabi'iya beeraha iyo xoolaha. Tusaale ahaan, intii u dhaxaysay sannadihii 1961 ilaa 2004,
jaamacadda Columbia University ee waddanka Maraykanku waxa ay diiwaan gelisay ilaa 18 jeer inay daadad ka dhaceen waddankeena. Daadadka waddankeena ka dhacay waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 2,671 qof, waxaana ay daadadkaasu saameeyeen nolosha dad lagu qiyaasay 1.8 milyan. Sidoo kalena waxaa waddankeena ka dhacay 12 abaarood oo dilay 19,671 qof ayaa ku dhintay abaaraha aawadood. Mowduuca intaas ayaan kusoo koobayaa maanta. La soco qaybaha kale.